komishanka xakamaynta HIV/AIDS ayaa soo qabanqaabiyay kulan lagaga hadlayay sidii manhajka waxbarashada dalka loogu dari lahaa xog dheeriya oo ku saabsan xanuunka HIV/AIDS iyo sidii ardayda da'yarta ah ee dalka loo bari lahaa in xanuunkani halis yahay isla markaasna looga wacyigelin lahaa. waxaa kulankani ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ugu horeeyo agaasimaha fulinta komishanka xakamaynta HIV/AIDS, agaasimaha wacyigelinta iyo abaabulka ee komishanka xakamaynta HIV/AIDS, agaasimaha fulinta ee guddiga tacliinta sare ee Somaliland iyo mas'uuliyiin kala duwan oo kulankani goobjoog ka ahaa. waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasna kulankani furay agaasimaha fulinta komishanka xakamaynta HIV/AIDS Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed Aaye. waxa aanu ka sheekeeyay sida loogu baahan yahay in kulankani labada cisho socon doona loo dardargelin lahaa. barnaamijkan gudduu soo socday maanta wuxuu soo gaaray waqti final gareynayo oo marka intii ka dambeysay ay fulintii uuni hadhan tahay meel wanaagsan buu soo gaaray. de waxaan u soconaa waxa weeye in waa wacyigelin weeye dadkeenu inay ka dhibaatooyinka uu leeyahay ka ogaadaan. waxyaabaha ay ogaanayaan waxaa ka mid ah in aqoonta lagu daro. waxa ugu badan ee mushkiladda ee maanta uu asiibaya ama khatarta ugu jira waa dhalinyaradeenna teenage ku jirta weeyaan oo waqtiga dhalinyarnimada waad ogtihiin nin walba uu soo maray oo qaar ku jira iyo kuwa soo marayba wax walba way fudud yihiin, si fudud ba wax walba loo galaa. marka si fiican haddii wixii hal mar la sheego bulshada loo sheego ama media looga sheego waxa ka qurux badan waxa lagu celceliyo. soo hadaad maanta soo fadhiiso been ku celiso run bay noqonay. marka waxyaaba in lagu celiyo mar walba qofka soo marayay muhiimadeeda ayay leeyihiin. haddii ay dhalinyaradeennu si aqoon u bartaan waxa aad u fududaanaysa in xanuunkaan xakamayno because aqoontoodii ba u yeesheen iyagii baa ka taxadiraya dadkay ka wacyigelinayaan. waa talaabo aad iyo aad u muhiim loo arkay in muhiim tahay in manhajka qaranka lagu daro. wax horay waa loogu daray dugsiyada dhexe inoo sheego ku jira waxba ku jira bisada waxbarashada aad ugu maashin talaabo horay loo qaaday. waan si kordhinaa secondaryada rabnaa inaynu iyadana hawshan haday noo gasho insha Allah oo meesha dhalinyarada ugu badan ku jirta. jaamacadeeni aad u batay iyagana aad bay u bateen wad ogtiin dalka jaamacad badan baa ka furan. dhalinyaro aad iyo aad u badan baa yaa dhigata oo mataqaana jaamacadaha waagi hooyadii hore dad majuur waaweyn baa geli jiray. iminka dhalinyaro aad u yar oo mararka qaarkood oranayso malaa sayidaadan secondary ku soo dhamaysatay ayaa waxaad arkaysaa jaamacadii lagu jiray iminka aad u yarin dhalinyarada ku jaamacada ku jirtaa. waa iska marka iyaga laftarkooga way u baahan yihiin aan gaarsiino. wasaaradda mataqaana komishanka tacliinta sare oo maanta ay DG-gii nagala jooga agaasimo guud nagala joogo waxaan u sii araaraynaa ugu yeernay inay dhegta ku sii qaataan oo markaan wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska isla dhamaystirno manhajka imika socda insha Allah oo hirgalo inaan xagga jaamacadaha u gudubno insha Allah inaynu dadkeenii ka wacyigelino oo xanuunkii maadaama xanuunkii uu da'yartii iyo meel kasta waynaga ataagayo si waxbarashadii looga qayb dhigo oo iyagana aqoon ahaan ay ugu noqoto wacyigelinna ay ugu noqoto oo aynu arrinka maadaama iskuuladeenii iyo jamhuuriyaddii Somaliland ay sare u kacday aynu rabno inaynu markaa meel kastoo dee waxbarashadu ay ka socoto hadday dugsi hoose tahay hadday dugsi dhexe tahay kolley dugsiyada hoose waa ku jirtaa waan dee soo garanaynaa laakiin dugsiyadii sare iyo jaamacadihii inaad qayb weyn ka qaadataan oo wacyigelintaas sida ilbahalka ah uu inoo sheegay Cabdicasiis aynu u xakamayn lahayn ayaa ahmiyadda ugu weyn aynu ka wadnaa iyo ujeedka aynu ka leenahay ay tahay. markaa ka wacyigelin ahaan waxaan doonaynaa annaga waxay noo tahay ahmiyad weyn oo maanta sharaf weyn iyo qiimo weyn bay noogu fadhidaa. waayo dee ubixii iyo falaawarkii ciddii hogaaminaysay ayaa maanta nala fadhida wasaaraddii waxbarashada ee qiimaha lahayd. taasina waa ta aynu doonayno inaynu wax ku gaadhsiino message-keenaas iyo fariinteenaas oo wacyigelintii aynu u tashanno qarankan sidaynu u badbaadin lahayn ee kolba halka uu joogo aan hore uga sii qaadi lahayn horena uga sii marin lahayn. markaa waxaan jecelahay arrinkaa insha Allahu tacaala maadaama dee furayaashii idinku aad tihiin
inaad ahmiyadda ugu weyn siisaan oo roolka dhowr jeer horena waa laga hadlay inaad maanta insha Allah taala sanadka maadaama manhajina ay furan tahay oo la doonayo wixii fikir iyo aragtiba in lagu daro inaad maanta roolka nala qaadataan. dhinaca kale waxaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey agaasimaha fulinta ee guddiga tacliinta sare ee Somaliland mudane Ibrahim Amiin Gadiid iyo Cabdicasiis oo ka socday hay'adda UNFPA iyo Mukhtaar oo kala shaqaynayay komishanka xakamaynta HIV/AIDS kulankani iyo Maxamed Cali Umar oo ka socday wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. mas'uuliyiintan oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaanu idin ballan qaadaynaa inaan mashruuca soo dhaweyno haddii Ilaahay yiraahdo marka uu kaalinta waxbarashada tacliinta sare soo gaadho si weyn oo mugle ayaan idinkala qayb qaadan doonaa idinka oo marka hore ka wasaarad ahaan wasaaradda caafimaadka HIV/AIDS-ka iyo tacliinta sare aynu isla eegi doono qaybta nagaga aadan iyo meesha aad rabtiin inaanu kaga darno waxbarashada manhajka tacliinta sare iyadoo oo imika aanu ku wajahanahay waxyaabaha noo qorshaysan ay ka mid tahay nacamideynta manaahijta tacliinta sare oo imika ay noo midaysan yihiin qaybta caafimaadka iyo qaybta waxbarashada oo labadaaba iyaga aanu dhammaynay laakiin haddana laba qodob oo aan la dheelsan karin baynu aragnay mid waxa weeyaan inta koorkii iyo faquuqii uu jiro oo weli bulshadeenu cidda uu xanuunkaasi asiibay qadarka ku yimaadana ay faquuqayso ka hadalkiisana waxoogaa laga warwareegay haddii laga warwareegay ka hadalkaasina waxay keenaysaa markaa dee in dhibaatadii aan waxba laga qaban karin in aqoonta HIV/AIDS educationka lagu daro manhajka waxbarashada Soomaaliya qodobka koowaad waxay ahayd misconceptions badan oo ay dadkeenu ka aaminsan yihiin xanuunka marka haddaan doonayno inaynu fikradaha qaldan ee xanuunka laga aaminsan yahay aynu bulshada ka saarno meelaha ugu badan ee aynu bulshada wax kaga bedeli karnaa waa nidaamka waxbarashada marka inaynu waxbarashadii iyo manhajkii lagu qaadanayay aynu ku darno cashiraan aynu ku saxano fikradaha qaldan ee dadku ay ka aaminsan yihiin xanuunku ujeedada koowaad beh ujeedada labaadna waxay ahayd bulshadeena waxa aad ugu badan in dadka xanuunka la nool faqooq badan ay la kulmaan istigma fara badan ay la kulmaan taana si meesha looga saaro waa in iskuuladii lagu wacyigeliyo manhajka waxbarashada ay qayb ka noqoto marka carruurta iskuulada dhiganaysa markay cashiraanta akhristaan ee macallimiintoodii ay soo diyaariyaan ay u dhigaan marka muddo lagu celceliyo waxaa meesha ka bixi doona istigmahaasi ay dadkaasi la kulmayaan marka ka xafiis ahaan annagu diyaar baanu insha Allah haddii Allah yiraahdo in wixii dee content-ka qoladani ay diyaarsay inaanu dib ula eegno dabeeto aan isku eegno insha Allah haddii Allah yiraahdo wixii hore inoogu jiray textbook iyo syllabus-ka iyo content-ka waxa weeyaan manhajka inaanu isbarbardhig ku sameyno dabeeto wixii macluumaad ay markaa xagga ka dhiman insha Allah xagga dib u raacino taa insha Allah waa ballan qaadanaa haddii Allah yiraahdo arrinta kale aan xoojinaya waxa weeye discussionadii socday waxaa ka mid ahaa tusaale ahaan oo kale xanuunkan aafada siyaabaha lagu kala qaado